haweeney lagu magacaabo Jimmy taas oo la fadhida nin la yiraahdo Adam ayaynu arkaynaa inta lagu gudo jiray sharafoodkooda. Jimmy waxa ay muujisay rabitaankeeda ah inay noqoto professional kickboxer. Waxay rabtaa inay dadka garaacdo. markay guriga ku soo laabatay iyadoo ku jirta suuliga saaxiibteedna kula sheekaysanaysa telefoonka ayaa qof maaskar xiran gurigeedii soo galay oo afduubtay. Muuqaalka xiga Jimmy waxa uu soo laabtay miirkeeda waxayna aragtay iyada oo ku xiran qol aan garanayn oo banaan kamarad CCTV ana ay kor ku xiran tahay. Cabsi badan baa ka buuxsantay albaabka ayaa garaacday iyadoo codsanaysa gargaar. Albaabku wuu furmay isagoo daaha ka fiday dariiq mugdi ah oo ka horeeya. Si cabsi leh ayay hore u socotaa isla markiiba waxay la kulantay haweeney kale oo la yiraahdo Sabrina oo u liibsan sida Jimmy. ma awoodin inay aaminto Jimmy waxay ka mamnuucday inay u soo dhawaato laakiin Sabrina waxay sheeganaysaa in iyaduna ay tahay dhibane. taas kadib markii ay labadooduba sahmiyaan aaga albaabka gadaal ayuu ka xirmaa waxayna ku xayirmeen qol wareeg ah si lama filaana Sabrina waxay tiri waan ka xumahay waxayna weer ku qaaday Jimmy wax fikrada kama haysto waxa socda laakiin si kastaba haatee way la dagaalantay waxaana dhex maray dagaal xoogan oo u dhaxeeya labadooda. Jimmy waxay weydiisay sababta ay sidan u sameynayso Sabrina ayaa ku jawaabtay waan ku qasbanahay. ugu dambeyntii Sabrina waxay dhulka dhigtay Jimmy oo waxay ku dhufatay irbaaxooyin badan taasoo keentay dhimashadeeda. waa ay ooyday iyadoo isweydiinaysa intee in lag ayay tahay inay qaadato. lamaana lagu magacaabo Joseph iyo Elizabeth kuwaas oo la muujiyay inay ka dambeeyaan waxaan oo dhan waxay afduubteen habeenka waxa ayna ka dhex abaabulayaan dhexdooda dagaal. dhammaan dagaalka ka socda qolka ayaa ah mid si toos ah loo baahinayo waxaana daawanaya macaamiishooda hodanka ah. waxay u muuqataa inay sameeyaan faa'iidooyin lacageed iyagoo u maraya dadka hodanka ah si ay ugu bedelaan madadaalo. markii lagu soo noqday xabsiga Sabrina waxaa hurdada ka toosiyay oohinta murugada leh ee dumarka kale. waxyar kadib Joseph wuxuu ku dhawaaqay natiijooyinkii kulmadii hore wuxuuna sidoo kale doortay kuwa ku xiga. waxaa soo baxday in qoyska dagaalyahanadu ay noolaan doonaan ilaa inta ay dagaalyahanadu ay ka badbaadaan dagaalada. ciyaarta ayaa dib u bilaabatay waxaan aragnaa laba dumar oo kale Dee iyo Phoebe iyagoo u socda goobta dagaalka. markay halka u socdaan Dee waxay u sheegtay in loogu hanjabay in waxyeelo u geysan doonaan walaasheed. Phoebe ayaa ugu jawaabtay in ay sidoo kale iyaduna hooyadeed ay qadka ku jirto oo yacni la haysta iyadana. waxyar kadib dagaalkii wuu bilaabmay. Phoebe waxay isla markiiba shay gacanta sare waxay weerar bahalnimo ah ku qaaday Dee waa ayna dishay. dhanka kale maxbuusad kale oo lagu magacaabo Cody ayaa isku dayday inay la hadasho Sabrina way isbartay oo waxa u sheegtay in markii ay yareed ay goobjoog u ahayd xadgudubka aabaheed ee u geystay hooyadeed. tani waxay ku reebtay xasuus ilaa iyo maanta. waxyar kadib hogaamiyaha ilaaliyaha xarunta Curtis wuxuu galay qolka Sabrina si uu u siiyo xoogaa cunto ah wuxuuna ugu hambaliyay guushii ay dhawaan gaadhay taas oo sabab noqonaysa in gabadheeda ay sii noolaan doonto hal maalin oo kale. Sabrina waxay ku andacootay in aysan haysan gabadh isla markaana aysan dan ka lahayn waxa ay ku sameeyaan gabadhaas yar. Sibdaro tani waxay ka cadhaysiisay Curtis sidaa darteed wuxuu ku riixay gidaarka waxaana qori ka saaray madaxa. wuxuu uga digayaa in maskaxda ku haysa afkeeda haddii kale hadda kadib ma heli doonto wax caawinaad gaar ah. kadib 6 ka mid ah haweenka xiran oo ay ku jiraan Sabrina iyo Phoebe ayaa laga soo saaray qolkooda qol kale ayaa la geeyay waxaana lagu xiray kuraasta. ciyaalada markay baxeen Phoebe waxay bilowday inay hadasho iyadoo oo sheegtay inay ku raaxaysto dagaalka oo ayna la yaaban tahay inta kale ay dili doonto. si ka duwan iyada dhammaan dumarka kale waxay si quus ah u rabaan inay ka baxaan cadaabtan. sheekadooda waxaa markiiba joojiyay oo soo dhexgalay Joseph iyo Elizabeth. Joseph wuxuu u sheegay inay keeneen xarunta Cotton habeen ah haddana ay harsan yihiin 22 kaliya. Elizabeth ayaa markaas u soo dhawaatay Sabrina oo ay amaantay awoodeeda dagaal halka Phoebe uu raali ka yahay Joseph. sidoo laga soo xigtay lamaanaha guuleystaha kama dambaysta ah waxaa lagu dooran doonaa 3 maalmood gudahood iyo in laga sii deyn doono xarunta. kala fadhiga kadib haweenka ayaa dib loogu soo celinayaa nuugyadoodii markaasi oo ay Phoebe bilowday inay caaydo Sabrina. naasigii ayaa keenay in Sabrina ay xanaaqdo oo ay madaxa ku dhufato Phoebe. si kastaba haatee waardiyaashu isla markii way kala sooceen iyaga oo ka hortagaya dagaal kale. kadib maxbuusad kale oo magaceeda la yiraahdo Teresa ayaa Sabrina weydiisay inay ciidan tahay iyo in kale. markii ay ku jawaabto haa waxay u soo jeedinaysaa inay ka baxsadaan xaruntan. isbahaysigoodii kale Cody ayaa sidoo kale ku raacday iyadoo u sheegtay in waxa kaliya ay tahay inay sameeyaan ay tahay inay dilaan ilaalada. si kastaba haatee Sabrina waxay ku adkeynaysaa in aan sidaas u sahlayn sababtoo ah iyaga iyo xubnaha qoyskooduba aad ayay isha uga hayaan. qaladaadkooda yar waxa uu halis gelin karaa nolosha kuwa ay jecel yihiin. si ay dareenka uga gudubto Sabrina waxay bilowday inay ooydo markay muujisay in ilmaheeda ay u dhiibtay si loo korsado oo meena awoodin xilligaas inay koriso. laakiin hadda si joogto ah ayaa loola socdaa. goobta soo socota Cody waxa u soo baxday inay la dagaalanto maxbuusad kale oo loogu magacaabo Marisa. dumarka intiisa kale waxay dagaalka ka daawadaan shaashad yar oo telefishin ah oo qolkooda ku taal. Cody si uun bay u maaraysaa inay ka adkaato qofka ka soo horjeeda iyadoo isticmaalaysa farsamo xiiqsan. taas kadib Sabrina waxay ku qasban tahay inay la dagaalanto ciyaaraha dhimashada isku xigta ee laba dumar ah oo lagu magacaabo Gloria iyo Alex. laakiin waxay maamushay inay ka guuleysato labadoodaba. si kastaba haatee aad bay u daalan tahay waxayna isdhigtay dhulka.
waxay kadib qaar ka mid ah ilaalada ayaa soo galay qolka dagaalka oo meesha ka qaaday iyada. Dhanka kale dhammaan ciyaarahan tooska ayaa loo sii deyn doonaa dadka hodanka ah iyada oo loo sii marinaya shaashad weyn oo telefishin ah. Tirsa ayaa loo qaatay dagaalka ka socda waxaana la dagaalamaysa Rachel. Markii dagaalku bilaabmay labadoodu waxay bilaabeen inay isfeeraan laakiin Tirsa ayaa ugu dambeyntii ku guuleystay inay dhulka dhigto. Iyadoo dareemaysa guuldaro Rachel waxay Tirsa ka codsatay inay u gudbiso fariintan oo ah inay ninkeeda aad u jeceshahay. Tirsa madaxa ayay u luuxday kadibna waxay ceedsisay Rachel si ay u dhimato. Dagaalka xiga laba dumar ah Anne iyo Brenda ayaa lagu amray inay ka baxaan qolkooda. Anne way adeecday laakiin Brenda waxa ay leedahay burbur neerfaha ah waxayna diiday inay dagaalanto. Markii ay waardiyaashu ay awoodi waayeen inay soo diraan Curtis wuxuu ku wargeliyay Elizabeth oo markaas soo galaysa xarunta si ay wax uga qabato xaaladda. Markay u soo dhawaatay Brenda waxay xasuusinaysaa in sida kaliya ay ku badbaadin karto hooyadeed ay tahay iyada oo maqasha ayna ogolaato dagaalka. Brenda waxay madaxa kaga dhuftay sanka Elizabeth taas oo keentay inay sanka ka dhiig baxdo. Tani waxay ka carisay Elizabeth waxayna sheegtay in Brenda aan la badbaadin karin waa ayna toogatay. Waxay markaas ka faaloonaysaa baahida loo qabo in la helo bedelkeeda. Dhanka kale Sabrina way kacdo oo waxay isku aragtay iyada oo miiska saaran. Waxa u suurta gashay inay isxoreysay balse intaanay u soo dhaqaaqin miiska kale oo mindiyo ka buuxaan ayaa waxa qabtay waardiyihii. Ku soo noqoshada qolkeeda Sabrina waxay isku daydaa inay u wacdo xulfadeeda ah Tirsa iyo Cody laakiin ma helin wax jawaab ah. Nasiib daro waxay markiiba ogaatay in labadoodu ay iskaga hor yimaadeen dagaal. Qolka dagaalka Cody iyo Tirsa labaduba ma rabaan inay isdagaalaan. Tirsa waxay la yaabantahay waxa dhici doona haddii ay si fudud u diidaan inay dagaalamaan. Cody waxay sheegaysaa in diidmadan oo kale ay keeni doonto dhimashada labadoodaba iyo sidoo kale kuwa ay jecel yihiin. Tirsa ayaa markaasi wax ka weydiisay Cody hooyadeed laakiin iyada oo aan jeclayn ayay feertay halkii ay ka jawaabi lahayd. Iyada oo taasi jirto Tirsa kama argoosato oo taa bedelkeeda waxay sii wadaa in ay u sheegto ninkeeda kaas oo buka oo ku jira qaybta daryeelka degdeg ah. Waxay sheegtay in ay u badan tahay inay barako u noqon doonto haddii uu ogaanshaha sida xun ee Cody ugu baahan tahay hooyadeed. Tirsa waxay dooratay inay u ogolaato inay ku guulaysato dagaalka. Tirsa ayaa Cody cunaha kaga dhigtay iyadoo ku amartay inay si adag u qabato kadibna waa ay dishay. Markuu dagaalku dhamaado Cody ayaa ooyaysa maadaama ay sabab u noqotay dhimashada saaxiibadeed. Nasiib daro iyadoo ma hesho nasasho badan maadaama Phoebe isla markiiba loo soo geliyay qolka dagaalka si ay uga hortagto. Intii ay sii socotay Phoebe waxay cayday Sabrina iyadoo u sheegtay inay dili doonto isbahaysigeeda. Sabrina waxay ugu digtay inay ka fogaato Cody laakiin Phoebe waxay sii wadataa socodkeeda. Markii ay soo gashay qolka dagaalka Phoebe waxay sii wadaa jijiskeeda iyada oo wax ka sheegtayna aabaha Cody taasoo kicinaysa dhaawaca Cody. Tani waxay ka carisay Cody kadib waxay bilowday dagaalka iyadoo ku bilowday feer. Si kastaba haatee Phoebe waxay awoodaysaa inay gacanta sare hesho oo ay si naxariis darro ah u garaacdo. Ugu dambeyntii waa u dhameysay Cody iyadoo si naxariis darro ah madaxa uga garaacday gidaar. Dhacdadan kadib Phoebe waxay cadeysay rabitaankeeda ah inay ka hortagto Sabrina. Dib ugu soo noqoshadeeda qolkeeda Sabrina waxay sidoo kale muujisay rabitaankeeda ah waxayna u dhawaatay Curtis si ay u codsato ogolaansho inay sidaas samayso. isagoo ka jawaabaya Curtis ayaa si kibir leh ugu sheegay inay la dagaalami karto cidda ay rabto sababtoo ah waxay doonayeen inay dilaan gabadheeda. Intaas kadib wuxuu ku soo laabtay qolka kontaroolka oo uu furay albaabka qolka Sabrina. Kadib waxay u carartay qolka dagaalka halkaasoo Phoebe ay ku sugayso. Isla markii waxay weerar ku qaaday Phoebe iyadoo caradeeda u gudbinaysa. Sabrina waxa ay ku dhufatay dharbaaxo xoog ah waa ayna garaacday. Laakiin Phoebe ayaa iska qoslaysa oo ma aha qof la garaacayaba. Tani waxay sii horisay carada Sabrina waxay ku dhufatay feer iyo laadyo xoog badan ugu dambeyntiina waa ay dashay. Intaas kadib Phoebe jirkeeda waa la qaaday laakiin Sabrina waxaa lagu amray inay ku sii qolka dagaalka sababtoo ah weli waa inay la dagaalantaa mid kale oo ka soo horjeeda oo ah bedelka cusub ee Isabella Thomas. Sidoo uu sheegay Joseph waa markii ugu horeysay oo dagaalka ugu dambeeyay uu ka dhaco qof cusub oo uu macnaha ciyaaro. Waxa uu sii wadaa inuu sheegay in Isabella ay tahay ciyaaryahanada hore oo heshay deeq waxbarasho oo buuxda. Waxay ka shaqeysaa goob jimicsi oo ay ninkeeda la leedahay. Joseph wuxuu sheegay in kuwa ka badbaada dagaalkan lagu dhawaaqi doono horyaalka ugu dambeeya. Waxay kadib iyadoo Isabella ay soo gashay qolka dagaalka Sabrina waxay weydiisay inay og tahay sababta halkan loo keenay. Isabella waxay ku jawaabtay maya taasoo ku kaliftay Sabrina inay u sharaxdo saamiga diidmada ama guuldarrada waxay horseedi doontaa dhimashada kuwa ay jecel yihiin. Sida la filayo Isabella ma rumaysna sidaa darteed Sabrina waxay dagaal ku bilowday feer. Argos ahaan Isabella waxay ku tuftay dhulka waxayna maamushay inay ka adkaato xirfadeeda dagaalka hal mar. Isabella waxay gacanta ku haysaa qoorta Sabrina oo markaas ka codsatay inay samayso. Isabella ayaa markaas sii waday inay maroojiso qoorta Sabrina taasoo keentay in dhulka ku dhacdo. Dagaalku uu dhamaaday Isabella waxaa lagu dhawaaqay inay tahay guuleystay. Ilaalada ayaa qaaday meydka Sabrina waxayna geeyeen qolka meydka. Waxay kadib Joseph iyo Elizabeth waxay soo galeen xarunta si ay ula kulmaan guuleystaha. Intaas ka hor waxay u mahadceliyeen Curtis adeegiisa waxayna u fidiyeen casuumaad inuu ku soo biiro
abaabulay xaflad ka baxsan xarunta oo ay la leeyihiin dadka hodanka ah. Qolka meydka lagu keediya iyada oo qof shaqaale ah uu ku dhow yahay inuu tago meydka Sabrina si lama filaan ah ayay u kacday oo mindi ku dhufatay ninkii. Halkan waxaa lagu muujiyay in Sabrina ay soo badhintay geerideeda oo xaddi go'aansatay inay ka baxsato xarunta. Daqiiqado kadib xubin kale oo ka tirsan shaqaalaha ayaa soo galay qolka meydka Sabrina, sidoo kale waxay ka jartay cunaha. Kadib si taxaddar leh ayay qolka uga soo baxday oo bilowday inay disho waardiyaashii. Aakhirkii waxay jabisay qolkii ay Yusuf iyo Elizabeth kula hadlayeen Isabella. Iyadoo aan waqti lumin, Sabrina waxay weerartay lamaanaha kadibna waxay isku dayday inay xoreyso Isabella. Elizabeth waxa ay qabsatay ul oo ay ku dhufatay Isabella, taas oo sabab u noqotay inay dhimato. Argos ahaan Sabrina waxay la dagaalantay Elizabeth oo waxay ka tuurtay daaqadda, taasoo keentay inay dhimato. Joseph oo naxay ayaa isla markiiba cunaha ku dhigay Sabrina si ay u dhimato uga takhaluso. Si kastaba ha ahaatee, waxaa si uun ugu suurto gashay in ul alwaax oo af badan ka soo qabsato dhulka oo ay qoorta kaga dhufato ayna disho. Dhanka kale, Curtis wuxuu joogaa xafladda. Markuu ogaado in xaaladdu ayna deganayn ayuu wuxuu dib ugu soo laabtay xarunta kaliya si uu ula kulmo Sabrina. Kahor intaan qoriga la kala bixin, Sabrina waxay ku garaacday qori bartaa ayayna ugu dhamaysay. Intaa kadib waxay u soo baxday hoolkii xafladda iyadoo dadkii hodanka ahaa ay ka yaabin yihiin. Waxay u sii socotaa dhanka eridda weyn, waxayna ugu dambeyntii u soo baxdaa idinka qoraxda. Buundada ayay ku orday iyadoo ku dhow inay hesho xorriyaddeeda. Nasiib darro, baxsashadeedu waxaa joojinaya nin waardiye ah kaasoo ka togtay xagga dambe. Ninka ayaa ah Adan, isla ninkii aynu arkaynay bilowga filimka. Waxaa daaha laga qaaday inuu yahay shaqaale kaasoo soo afduubtay dumarka keenana xaruntan. Filimku wuxuu dhammaanayaa iyadoo Sabrina ay leedahay aragti kama dambays ah oo gabadheeda ka hor intaysan u dhiman dhaawaceeda. Waa Aflaan Media. Waxaa kaa codsanaya inaad like saarto muuqaalka, channelkana subscribe dhahdo. Mahadsanid.